kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkani waa Fan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Cashirkan ciwaankiisu waa Classroom Phrases Part 2. Darsigan waxaynu ku baranaynaa weedhaha fasalka ama classka qaybtii labaad. During the lesson. Qaybtan waxaynu ku baran doonaa weedhaha la adeegsado xilliga darsiga uu socdo. Are you ready? Everybody, pay attention everybody. Open your books at page. You need pencils or rulers. We'll learn how to. You have 5 minutes to do this. Turn to page. During the lesson. Waa waqtiga ama muddada xiisadu ay socoto ama darsiga lagu jiro. Are you ready? Diyaar ma tihiin? Macalinka markuu fasalka soo galo xiisada bixinayo wuxuu leeyahay Are you ready? Diyaar ma tihiin? Everybody, qof kasta sidaas ha sameeyo. Waxaa raacinaysa adaa garanaya. Pay attention everybody. Qof kasta ha foojignaado. Open your books at page. Open fur your books buugtiina ama fura buugtiina at page. Ha raacinaysa page numberka. Page 20, page 13. You need pencils. Waxaad u baahan tihiin qalin qori. Pencils waa qalin qori, waa qalin geedka. You need rulers. Waxaad u baahan tihiin mastarado. You need rulers. Waxaad u baahan tihiin mastarado. We will learn how to. Waxaynu baran doonaa sida waxaa loo sameeyo. How to. Kadib waxaa raacinaysaa wixii markaa la sameyn lahaa. You have 5 minutes to do this. 5 daqiiqo ayaa haysataa aad ku sameynayso arrinkan. You have 5 minutes to do this. Turn to page. U rog ama u gedi page-ka. Page 2, page 5. Ha raacinaysaa page numberka. Look at activity 5. Listen to this tape. Repeat after me. Again, please. Who's next? Like this, not like that. Look at eega activity 5. Activity-ga shanaad. Activity mar waxaa la yidhahdaa wax markaa la qabanayo la sameynayo ama laga shaqeynayo. Listen to this tape. Dhegeyso cajaladan. Tape waa cajalad. Repeat after me. Iga daba akhri. Iga daba dheh. Again, please. Mar kale fadlan. Who's next? Yaa ku xiga. Like this sidan, not like that. Saas ma aha, waa sidan. Comprehension language. Qaybtan waxaan ku baranaynaa fahanka luqadda. Qofkii casharka loo akhriyay inuu fahmay in kale. Markaad doonayso waxaa leedahay Do you get it? Ma fahmaysaa? Do you understand it? Ee la micno tahay. Are you with me? War meela socotaa? Are you with me? Meela socotaa? Waxaan akhrinayo ma fahmaysaa meela socotaa weeyaan. Are you okay?
فعادي ما تihid so ma fahmaysid do you follow me ma ila socotaa okay so far ilaa hadda waa okay soo ma aha do you understand ma fahmaysaa miyaad fahmaysaa what did you say war maxaad tiri one more time waqti kale please fadlan say it again mar kale dheh please fadlan like this sidana is this okay sidan soo okay ma aha other common instructions tilmaamooyinka kale caamka waxaa ka mid ah come in soo gal gudaha get out dibadda u bax banaanka u bax stand by your desks waxaad istaagtaan ama garab istaagtaan miisaskiina stand up istaag sit down fadhiiso come to the front of the class waxaad imaadaa afka hore ee fasalka put your hands up gacmaha kor u taag put your hands down gacmaha deji hold your books up kor u hay buugagtiina hold your books up kor u hay buugagtiina hold your pens up kor u haya qalimadiina show me your pencil itus qalin qorigaaga giving instructions in la bixiyo ama la siiyo tusaalooyin open your books at page 75 I want you all to join in the whole class please all together now come out and write it on the board listen to the tape please get into groups of 4 finish off this song at home everybody please open your books at page 75 waxaad furtaan buugagtiina pageka 75aad I want you all to join in waxaan doonaa dhammaantiin inaad nagu soo biirtaan ama ka qayb qaadataan the whole class please waxaan doonayaa fasalkoo idil the whole class all together now dhammaanteen wadajir ayaan doonaynaa iminka come out and write it on the board dibadda u soo bax oo ku qor sabuuradda dusheeda listen to the tape dhegeyso cajaladda please fadlan get into groups of 4 waxaad iska dhigtaan gruubyo afar ah finish off this song at home waxaad kusoo dhammaysaa kusoo bogtaa heestan guriga everybody please waxaan doonayaa qof kasta fadlan everybody please qof kasta fadlan could you try the next one I would like you to write this down would you mind switching the lights on it might be an idea to leave this till next time who would like to read which topic would your group report on do you want to answer question 4 can you all see the board could you try the next one midda xigta ma isku dayi kartaa oo ma tijaabin kartaa I would like you to write this down waxaan rabi lahaa ama jeclaan lahaa inaad qortid kan would you mind switching the lights on and would you mind waxaa loo isticmaalaa polite request codsiga edboon marka ma deminaysaa leerarka ama waxaad ka qabtaa haddaad demiso leerarka it might be an idea waxay noqonaysaa ama laga yaaba inay noqoto fikrad to leave this in laga tago kan ama arrinkan till next time ilaa xilliga dambe laga gaaro ama waqtiga xiga who would like to read yaa jeclaan lahaa inuu akhriyo which topic would your group report on and groupkiina mawduuce ayuu soo bandhigi doonaa do you want to answer question 4 ma doonaysaa inaad ka jawaabto question 4 su-aasha afraad can you all see the board dhammaantiin ma u jeedaan ma arki karaysaan sabuuradda sequencing waxa weeyaan isku xijin ama taxane first today first of all today after that then right
Now we will go on to the next exercise. Have you finished? For the last thing today, let us whose turn is it to read? Which question are you on? Next one please. And waxaa loo isticmaalaa qaybta markaad doonaysid inaad wax isku xeexejisid taxana ka dhigtid. Waxaa leedahay fast today. Ugu horreyn maanta. Ama waxaad dhigi kartaa first of all today. Ugu horreyn maanta. After that intaa kadib ama then. Right? Hagaag ama sax. Now we will go on the next exercise. Waxaynu gelaynaa exerciseka ama layliga xiga. Have you finished? Ma dhamaysay? For the last thing today. Shayga ugu dambeeya maanta. Let us in wax la raaciyo mooyaane keligeed micno ma yeelanayso. Whose turn is it to read? And yuu yahay doorkiisa inuu aqriyo maanta. Whose turn is it to read? Kuma ayuu yahay doorkiisa inuu aqriyo. Which question are you on? Jawaabtee maraysaa? Next midka xiga. Next one midka xiga. Please fadlan. Next waa dhigi kartaa ama next one. Who hasn't answered yet? Let me explain what I want you to do next. The idea of this exercise is for you to. You have 10 minutes to do this. Your time is up. Finish this by 20 to 11. Have you found the place? Are you all ready? Who hasn't answered yet? Yaanan weli jawaabin. Let me explain what I want you to do next. Aan kuu sharaxo waxaan doonayo inaad adigu samayso marka xiga. Let me explain what I want you to do next. Aan kuu sharaxo waxaan doonayo inaad samayso marka xiga. The idea of this exercise is for you to. The idea fikradda of this exercise ee layligan is for you waxa weeyaan adiga to saa iyo saa. You have 10 minutes to do this. Waxaad haysataa 10 daqiiqo inaad ku samayso arrinkan. Your time is up. Waqtigaaga wuu idlaaday wuu dhammaaday. Finish this by 20 to 11. Finish this waa inaad dhammaysaa kan ama arrinkan ama hawshan by 20 to 11. And 11 oo dhiman 20. Have you found the place? Ma heshay meeshii ama ma heshay goobtii? Are you all ready? Dhammaantiin diyaar ma tihiin? Supervision waa kormeer ama kormeerid. Stop talking. Look this way. Listen to what is he saying. Leave that alone now. Be careful. Stop talking. Jooji hadalka. Look this way. Sidaan fiiri qaabkan ama dhinacan fiiri. Listen to what. Meesha banaan waxaa gelin kartaa listen to what he's saying oo kale. Dhegeyso wuxuu leeyahay asaga ama she's saying or what the teacher is saying. Leave that alone now. Taa hadda ka tag. Faraha ka qaad. Be careful. Taxadir. Questions su'aalaha. Any questions? Do you have any questions? Now I'm going to ask you some questions. Who knows the answer? Raise your hand. Please raise your hand if you don't understand. Questions su'aalo. Any questions? Wax su'aalo maad qabtaan? Do you have any questions? Wax su'aalo ma qabtaan? Now I'm going to ask you some questions. Hadda waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo ama ku weydiiyo xogaa su'aala ah. Now I'm going to ask you some questions. Hadda waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo ama ku weydiiyo some questions xogaa su'aala ah.
Who knows the answer? Kuma garanaya jawaabta. Raise your hand. Gacanta kor taag. Gacanta kor u qaad. Please raise your hand if you don't understand. Fadlan gacanta kor u taag haddii aadan fahmaynin. Try to answer by yourself. Try again. A full sentence, please. Use a full sentence, please. Make a sentence. Say it in a loud voice. Louder, please. Again, please. Try isku day to answer by yourself. In adiga iskaa uga jawaabto isku day. Try again. Mar kale isku day. A full sentence, please. Waxaan doonayaa jumlad dhammaystiran fadlan. Use a full sentence, please. Isticmaal jumlad dhammaystiran fadlan. Make a sentence. Jumlad samee. Say it in a loud voice. Kor u dheh. Cod sare ku dheh. Louder, please. Kor u qaad codkaada fadlan. Waxaanu doonaynaa cod kor u dheer. Again, please. Mar kale fadlan. Responding to questions. Responding to questions. In laga jawaabo su'aalo. Yes, that's right. Fine. Almost. Try again. What about this word? What about this word? Yes, that's right. Ha, taas waa sax. Fine. Waa fiican tahay. Almost. Waad ku dhowdahay. Try again. Markaas ku day. What about this word? Bal ka waran ereygan.